السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. khiyaarta kusoo dhawaada sida loo jarjaro ama qaabka loo jarjaro qalada ama sharatada cilaanka lagu saarto. Hadda waxaan bilaabaa qaybta miishaarta loo yaqaano. Qaybta hadda aan jarjarayo waa qaybta miishaarta loo yaqaano. In badan daawadayaasha ugu xiran waxay iga soo codsadeen inaan oon tusiyo sida loo jarjaro ama qaabka loo jarjaro miishaarta sharatada loo yaqaano. waa mid iska fudud, waa easy insha Allah. qaabkana wadaysaa xabadan halkan dhinac markaas aan u sameyso hadda ishaada ku arki doontaa sidaas oo ku wada ilaa geeska aad ka gaartid. waa isku soo qabanin asana u jare dhag dhag dhag. wax iska fudud waaye. marka dhinacan geeskan saas u dhameyso ada geeska kale hadana ku xijinee kadib asna sidoo kale gees ilaa geeska gaarsiinay kadib dhexda ka dhambaleysaa. marka waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo qaabta sharatada kale pasta asna sida loo jarjaro inaan aragto horena oo soo saaray aan ku celinaa insha Allah. hadda waa qaybtii dhinacii kale hadda miishaarta ka jaraa waa soo gediyey saxanka saa u jeedaan dhinaca kale hadana kasii jira. waxaa kaloo idin tusinaa xabada waxaan rabaa gobolkiiba inaa hal nooc inaa idinka tusiyo saa u fahantaan insha Allah. isku day inaa fahantaan. hadda xabadan waxaa idinku tusiyey qaybta miishaarta loo yaqaano. xabad mid kale aan qabanaa waxaa idinku tusinaa sida loo jarjaro pasta waxaa ku sameynaya ay nooc. asxaabta waa ka soo dhameeyay hadda waxaan sameynaa dhexda ka jaraa mujida waa isku soo aadinaa dhexda ka jaraa dhexda riigma dheer aa ka marsiinaa ujeeda lagu gabala noqonay dhinac u kala baxaya. marka adba lugtaada halka la eg tahay gaarsiisanayna insha Allah. haddii lugtaada zaid ay u dheer tahay waxaa sameynaysaa waa soo kabaysaa ujeeda markaasaan usoo fajiyey waxaa soo raaraacin jida micnaheedu waxay ka dhiginta sakiinta saas ima lahan. hadda adiga waxaa rabaa gacmaha sidaas inaa ugu bixiso insha Allah. inta badan day sakiinta af leedahay waxaasna soo raacayaan saxankay ku harayaan gobolkaas xitaa goboladaas hadda xataa way ku anfici karaan. waxaa ka dhigi kartaa mid sharaxaad oo dhexda la geliyo ujeedaan sida kusoo baxday miishaarta. ama lugta saas u saaraysaa sida salaaxi oo kale ama waxaa ka dhigi kartaa fiirooyin gobol ah hadba saadi aad jeceshay insha Allah. laakiin jiritaankiisa waa sidaas. okay gobolkan waxaa idinka tusinaa sida dheer loo jarjaro nashqada laga doonayo inaa saxanka idinku tusinaa insha Allah. sharatadan hadda sida ay tahay u jarjaraysaa ujeeda waxaana la rabaa si isla mid inaa u jarjarto mid weyn iyo ka noqonin midna yaris iyo ka noqonin insha Allah. kadib ay nooc ama ay fiiro ka sameyn kartaa insha Allah. marka intii kan wuxuu ku sahlayaa intaad sameyn lahayd sida pasta usoo jarjari lahayd haddana gobol gooy lahayd waxaa ka sahlan cabir toos weeyaan kan sidana u jarjaraysaa waa mid toosan insha Allah. asxaabta please hadaad ku cusub tahay subscribe saar. haddaad horey ula joogtayna like share comment dhiirgelintu waa xageena insha Allah. marka asxaabe xabadana sidaasaan ku dhameeyey soo jeedaan ilaa dhamaadkan gaarsiiyey. marka sida aan ka rabanaa waa idin tusinaa insha Allah. waxaa ku sameyn kartaa noocan oo kale raac tusaalahan xabadaas soo igi waa ku dhajiyey jeda. marka waxaa la rabaa inaad raacdo isla aan kusoo xiraya marka mid kale oo sharato kale maraadinayo. asxaabe midana waxaa idin tusinaa sharaxaad yaryar sida
xidiga oo kale loo sameeyo. Ujeeda sharootada hadda markaan gees ayaa loo jarayaa. Micnaheedu waa in isku waxa ay noqoto sida xidiga oo kale gees sidaa markaa u jarto waa qabanay sharootada haddana dhexda aad kasoo dhambalaysa rijmo kale. Ujeeda tirtada saa raacaysaa habka ani u jaro raac. Ujeeda hadda waa si leen toos markaan u jaray. Marka hore waxaa ku sameeyay leenka waa jiif u jaray. Haddana waxaan ku soo jarayaa leen toos kadib wuxuu noqonaa jarjaritaan oo sida la rabay oo ku soo baxay insha Allah. Kana waxaa loo talgalay sharaxaadaha gudaha oo kale marka sharootada aad sameyso in la geliyo kala loo talgalay waa ka sida xabada inta tusaale ahaan ka ay sameynaya soo u fahanto. Haddii aad sameyso leenka marka hore leenka aad toosiso haddana leen toos dhexda ugu soo dhufato sidaan kuma soo baxayso waxay noqonaysaa mid wuxuu noqonayaa midkaas mid bulkeeti sharootada loo yaqaano u jarmaya. Haddii leenka aad toosisid haddana leenka toos ku soo bidin insha Allah asxaabe. Kana waxaan ku tusinayaa baasta sharootada baastada micnaha waa mid kan oo kale waxaa loo talgalay sharoodada geesaha marayo sharaxaadaha waaweyn marka aadba cabirka rabto insha Allah ama dhexda ka dhufo ama sidiis u qaado aadba sida ku anfacdo insha Allah. Waka midka baasta la leeyahayna waa sidaan. Marka asxaabe waxaan jeclahay inaad fahanteen gabasho.